daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub السلام عليكم wuxuu yiri akhbaar ayaa soo gaartay xafiiskayga taasoo la xiriirta qashin iyo sul halis ku ah Soomaaliya oo ka dambeeyaan shirkado reer Yurub ah wuxuu hadda wada hadal loo socdaa annaga iyo wadamada shirkadahaas laga leeyahay waqtigan hadda ma doonayno inaan faahfaahin ka bixino arrimaha inta dhaafsan isla hadalkiisii ayuu Dr. Tolba hadana dib ugu noqday oo dib u toosiyay si looga badbaado buunbuunin iyo war aan la hubin UNEP waxay xaqiijinaysaa in shirkadaha laga leeyahay dalalka Talyaaniga iyo Switzerland ay heshiis la galeen qof la yiraahdo Dr. Nuur Cilmi Cusmaan oo sheegtay inuu yahay wasiirka caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya heshiiskaas ayaa waxa uu dhigayaa in muddo 20 sano ah waan 1990 ilaa 2011 shirkadahaasi Soomaaliya ay u dhoofinayaan noocyada kala duwan ee qashinkaas qiimaha waqtigaas heshiiska ayaa ah $8 milyan shixnad kasta oo qashinkaas ah waxa shirkadahaas ugu jira faa'iido lacageed oo lagu qiyaasay 8 ilaa 10 milyan shirkadda Swiss-ka ayaa iyadu ka helaysa shixnadiiba 2 ilaa 3 milyan iyadoo la qoondeeyay in sanadkiiba loo dhoofiyo nus milyan tan oo sun ah waxa hadda la dirayaa Soomaaliya wuxuu dhow 1 milyan oo tan qashinkaas ah halkii dadkii Soomaalida gaajada iyo dagaalada baabiyeen sidoo kale shirkadda Swiss ayaa la sheegay inay ku hawlan tahay dhismaha laba markab oo ay saaran yihiin qalab qashinkaas lagu gubo maraakiibta waxa loo adeegsanayaa daabulista qashinka ilaa hadda ma hubno inta qashinkaasi uu Soomaaliya gaaray waxa aad la tuusay in xeebaha lagu qubay shil kale oo kaas ka duwan ayaa ka dhacay waqooyiga dalka waa Soomaaliland halkaas oo maqsin ay ku jireen 81 litir oo sunta cayayaanka lagula dagaalamaha oo dhacday uu dabqasaday lana filayo in ay halis ku hayso biyaha dadka iyo xooluhu cabaan oo awalba gobolka ku yaraa waxaanu hadda ka tashanaa sidaan sahan degdeg ah Soomaaliya ugu diri lahayn waxay ku qaadatay muddo 5 dabshid ah in hay'addu fuliso balantii maamulaheedii Dr. Mustafa Kamal Tolba uu ballan qaaday walow sida maqaalkiisa ka muuqatay uu ballan qaaday in si degdeg ah sahan baaritaan ugu diraan Soomaaliya haddana ugu dambeyntii hay'addu waxay dabshidkii 1997 u dirtay xeebaha Soomaaliya qaarkood dad cilmi baariyaal ah oo hogaaminayay in lagu sheegay barre hore oo wax uga dhigi jiray jaamacadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan maadada chemistry oo magaciisa la yiraahdo Professor Mehdi Geedi Qayaad uu muddo ah ku wareegay xeebaha badweynta Hindiya ee Mudug ilaa Jubbada hoose oo arrimaha badan soo tabiyay Professor Mehdi oo kamid ahaa la taliyayaasha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga deegaanka wuxuu shaqadiisa baaritaan iyo xog raadiska ahayd bilaabay 10 May 1997 gabagabadii baaritaankaas oo lagu soo dhameeyay gobollo badan oo kamid ah Soomaaliya gaar ahaan nawaaxiga xeebaha badweynta Hindiya waxa lagu soo tabiyay waraysiyo raadraacyo aan yareyn laba arrimood baase xusid gaar ah mudan dhimashadii ninka luumaystaha oo ku dhintay xeebta Baraawe kadib markii uu furay Badda ka soo caariday oo aan la aqoon waxa ku jiray deedna wuxuu ku jiray uu ninkaasi soo gaaray sidaasna uu ku dhintay arinta kale waxay la xiriirtaa haaweyn oo dhererkeedu dhan yahay ilaa 6 mitir oo iyadna markeedii xeebta badweynta Hindiya ilaa mar dhexdaasana taalay meel u dhaxaysa ciga ilaa mareeg waxa jiib ah oo in badan la isweydiiyo la yaab noqotay in hay'addu ay qarisay natiijadii ka soo baxday shaqada uu qabtay teamka Professor Mehdi laakiin suxufiyiinta familkiga Cristiana oo iyaguna baaritaan sameeyay ay u soo gashay in ay noqol ama koobi ka helaan reportkii shaqadaas laga diyaariyay oo ay ku jireen sawirro muuqaalaba sidoo kale suxufiyiinta Talyaaniga waxay jiritaanka goobo fara badan oo kamid ah Soomaaliya oo dabshiyadii sagaashimaadkii iyo ka horba lagu aasay amase lagu daadiyay sun aad u halis ah sida ka muuqato jaantuska khariirada goobaha sunta lagu aasay dhulka koonfurta waxa ugu muhiimsan Jamaame ee aaga Kismaayo ilaa nawaaxiga xeebaha Marka iyo Muqdisho sida ay warbaahinteeda ku cadeeyeen 19 Agoosto 1996 Masar Cali Mahdi Maxamed oo ahaa madaxweynihii Soomaaliya xiliyadii dagaalada sokeeye ayaa isna si rasmi ogolaansho u siiyay in Talyaaniga oo kamid ahaa kuwa hore aan u soo sheegnay in la raado Osio si uu uga aasaaso meesha la raado ceel baraf rug lagu kaydiyo iyo warshad si kala hufta qashinkaas sunta ah ee dibadda laga soo waarido goobahaas qashinkaas si gaar ah loogu duugay waxa kamid ah bay yiraahdeen Jawhar agagaarka wadada Boosaaso ilaa Garowe iyo dhulka u dhaxeeya gobolada Bari iyo Sanaag intaas oo bariga ah waxa si dheer kuwa badda ay kaluumaysatadu arkeen waxa xisud mudan in iyaduna hadal uu yiri Masar Khalifa Umar Dareema oo isna u hadlay hay'adda oo ahaa arrimahani waa kuwa weyn nagu haya cawaaqib xumada ka iman kartaana ma aha kaliya mid soo raagaysa ee waa mid degdeg ah qorshahayaguna waxa uu ahaa in aan la dagaalano burcadnimada lagu hayo dhulka iyo xeebaha
Soomaaliyeed ee baylahda ah nasiib darrase buu yiri lama ilaalin karo 3300 kiiloomitir oo xeeb ah cali mahdi iyo Urano afar dabshid kadib markii mashruuci Urano jaaha lagu saaray Soomaaliya ayaa cali mahdi maxamed oo ahaa madaxweynihii Soomaaliya waqtigii dagaaladii sokeeye waxa uu mid kamid ah dadkii xiriirka la lahaa mashaariicda Urano oo la dhaho Professor Ozia waxa uu saxiixay warqad isaga oo sida warqada ku cad u ansixiyay in dalka Soomaaliya laga sameeyo goob lagu aasaasay sunta nukliyeerka ah aqalka baarlamaanka ee dalka Talyaaniga ayaa baaritaan xoogan oo uu ku sameeyay sunta halista ee lagu aasay dalka Soomaaliya iyo xiriirka ka dhaxeeya dilkii wariye Albi iyo sawirqaadaheedii Miran ayaa inta baaritaankiisa socday guddi arintaas loo xil saaray waxay 7 September 2005 waraysi dheer la yeesheen cali mahdi maxamed waxa taas garab socday xog fara badan oo ay soo ururiyeen hay'adaha sirdoonka Talyaaniga cali mahdi waxa ugu horeyn wax laga weydiiyay xaaladii hore ee Muqdisho taasoo dhinac kastaba taabanaysay kadib markii lagu wuri aan ka hadalno ninka la dhaho Marojino waxa uu cali mahdi maxamed durbadiiba sheegay in xaaskiisa Marojino tahay gabadh uu dhalay qof qaraabo la ah isaga kadib ayaa la weydiiyay waa maxay xiriirka aad leedahay Marojino ma xiriir ganacsiba mise waa xiriir siyaasadeed mise xiriir saaxiibtinimo mise waa xiriir faa'iido wadaag waxa uu cali ku warceliyay xiriir saaxiibtinimo maadaama uu ku noolaa aaga markii la weydiiyay cidda uu ninkaasi u shaqayn jiray cali waxa uu ku jawaabay inta aan ka ogahay waxa uu ahaa gaadiidle waxrara haddaba ninka la yiraahdo Marojino oo hore uga soo hadalnay waa in dhalashadiisu Talyaani tahay oo intii u dhaxaysay 1992 ilaa 1996 ku noolaa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho isagoo difaac ka haystay cali Marojino waxa uu lahaa gawaarida waaweyn iyo aalado lagu qodo godadka taasoo loo maleynayay in uu ku qoday godad lagu soo aaso sunta halista ah Marojino waxa la sheegay inuu ku lug lahaa mise qayb weyn ku lahaa dhismihii tagada ceel macaan ee ku taal Muqdisho u dhow xilligaas tagada la dhisay ayaa looga shakisan yahay in halkaas aaga u dhaxeeyo warshaqa Amerik lagu duugay hadhaaga qashiga sunta halista ah sidaan hore ugu soo tilmaamnay muuqaaladii hore waxaa jira warbixino muujinaya in Marojino uu Muqdisho gurigiisa ka dhigtay ilaa dabshidkii 1984 xilligaas uu ka soo cararay Talyaaniga eedayn la xiriirta isdabamarin cashuureed awgeed waxaana uu guursaday haweeney Soomaaliyeed oo ka soo jeeda magaalada Muqdisho waana ninka warbixino badan farta ku fiiqeen inuu ka mid yahay dadka sunta u aasad Soomaaliya kadib guddigii baaritaan ee baarlamaanka Talyaaniga ayaa waxa cali mahdi maxamed weydiiyeen in xiriir shaqo ay dhex martay isaga iyo Munyo Saciid Cumar waa injineer Munye waxa uu ugu jawaabay in aan weligood xiriir dhex marin isaga iyo Munyo waxa markaas la weydiiyay in ay jiraan warar la isla dhex marayo Soomaaliya dhexdeeda oo ah in dilkii wariyaashii Talyaaniga ahaa salka ku hayaan qorshihii wariyaashaasi ay ku tageen Boosaaso ee ay ku booqdeen markabka 21 Oktoobar ee kalluumaysiga oo ay qabsadeen maleeshiyaad ka tirsan jabhadda SSDF waxa kale oo wariyaashii soo ururiyeen xog ku saabsan sidii markabka loo qabsaday iyo sida khaldan ee loo adeegsaday mashruuca kaalmada ee dawladda Talyaaniga waxaana cali mahdi maxamed la weydiiyay in uu arrimahaas maqlay cali mahdi waxa uu ku warceliyay in uu maqlay in injineer Muri uu bixiyay lacag dhan $600 si loogu sii daayo markabkaas cali mahdi maxamed waxa la tusay warbixin ay qortay hay'adda sirdoonka Talyaaniga 3 September 1997 qoraalkaas waxa ka mid ahaa March 1993 in ay jireen ururo dambiilayaal caalami ah oo ka howlgala dhulal caalami ah kuwaasoo daabula waxyaalo sharci darro ah ururadaas oo xidhiidh la leh wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynihii Soomaaliya cali mahdi maxamed oo magaciisu yahay Xaaji Maxamed Xaashi Cigaal arrintaas cali mahdi waa ku gacan sayray waxa markaas la weydiiyay inuu og yahay in injineer Munyo la kulmay King Kong oo ku magac dheer boqorka waxa uu cali mahdi ku jawaabay hawaan ogahay markaas waxa la weydiiyay in uu ka warhayo in wariye Alaare Albi ay Boosaaso waraysi kula yeelatay boqorka waxa uu cali mahdi ku jawaabay kama warhayo midaas waxaas markaas la weydiiyay waxaad ka warhaysaa in hub lagu qaaday maraakiibta Shifko ee injineer Munye kamana warhaysid arrinta waraysiga miya waxa uu yiri maya waxa markaas hadana la weydiiyay soo warqad umaad qorin safiirka Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya adigoo ku weydiisanaya in maraakiibta laga soo wareejiyo injineer Munyo oo maamula ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Mogo arrintaas uu qiray cali mahdi oo hadana mar kale waxa laga weydiiyay sunta halista ee ku duuga Soomaaliya gaar ahaan wadada u dhaxaysa Boosaaso iyo Garowe waxa uu ku jawaabay ma doonay in aan ka hadlo jidka u dhaxeeya Garowe iyo Boosaaso sababtoo ah waxay arrintaas ku tacalluqdaa xilligii dawladii Maxamed Siyaad Barre waxa uu intaas ku daray Soomaalidu meel dheer ayay wax ka uriyaan oo waxay leeyihiin san si fiican wax u uriya wayna arki lahaayeen haddii wax jaadkaas oo kale ah la dhexgelin lahaa wadooyinka Soomaaliya ma heli kartid xitaa hal qof oo Soomaali ah oo arrintaas ka hadlaya yaa badan oo indha adka
waxa uu cali mahdi intaas raaciyay waxa lagu eedeeyay in aan lacag ka qaatay hadhaaga qashinka ee lagu daadiyay badda caalamiga ah oo aan anigu ansixiyay waa bad caalami ah mana ilaalin karno xitaa 50 kiiloomitir oo xeeb ah ma haysano maraakiib ma haysano waxaan ku ilaalino sidaas daraadeed waxaan aaminsanahay in dhammaan arrimahaas ay yihiin waxba kama jiraan waa arrin la dhoodhoobay laba dooraba boodhka ayuu cali mahdi isku qariyay haddii uu lacagta iska bari yeelo waa gaar haddii uu leeyahay suntu way jirtaa in lagu shubay badda Soomaaliya oo waxba kama qaban karnana oo itaalkeed ma lihinna waa gaar kadib cali mahdi waxa la weydiiyay ma garanaysaa ninka lagu magacaabo Lucido Isbanda waxa uu ku jawaabay